marka aniga iyo Sundu Saacid miyaan ismehersanay idinkuna wada sugaysaan inaan taa idinka jawaabo Amaar miyuu guursaday aniga hambalyadaydu waa 7 July. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنا ونكسنا أصحابته. سودوا هذا يوتيوب كهداون سوا عمار فيلمس عن فلوجس. فضلا هدا كعصبتي نايتاي مركي وجوه رئيسي دعوتان مقالكن أما فيديوهن لايك سبسكرايب شير كومنت انتوا حقينا. أصحابته ما أنت وحالك السوفريسي وحكى لما waxaan u soo laabtay inaan maxay ahayd arin idinka waramo maanta social media dhex maraya intaan arinkaas idinka waramin waxa jirta waxaan qorsheeyay ama aan jeclaystay inaan soo gelin muddo 7 cisho ah wax video ah sababta aan soo leeyahay si kala maaha xooga waa iska xanuunsanaa manaan jeclay inaan maxay soo fadhiisto maanta waxa halka ay soo fadhiisiyay idinka weeyaan oo maanta inaan maxay halka soo fadhiisto idinka sabab u ahaa oo maxay ahayd ugu wacan inaan halka soo fadhiisto waxaan saas u leeyahay wax weeye marka aad wax qorshayso xagga Ilaahay way wax iska bedelayaan horta waxaan jeclaa inaan mar walba maalin walba idinka ballan qaaday inaan muuqaal idin soo geliyo oo maxay ahayd fiidiyo qurux badan idin la wadaago maadaama tihiin asxaabtayda jecel mar walba inaan wax u soo duubo iyaguna maxay ahayd jecel in ay maxay ahayd dhiirigeliyaan runaantii dhiirigelinta aad dhiirigelineyseen maanta haddii aad u bedeshaan maxay ahayd waxba yahay ama hal bacaad lagu lisay runaantii waa wax laga qurux badan yahay oo maxay ahayd laga fiican yahay kulli bulshadu isku wada fikir maaha qof walba si ayuu u fikirayaa ku si xun u fikiraya ku si wanaagsan u fikira sababta jirta waxa weeye horta maxaa muuqaal u soo duubeyday taas halkeeda weeyaan maanta muuqaalkan kadiska ah oo aan ku talagalin in maxay ahayd aan idin wadaago waxay ugu kalifay waxa weeye waa idinka sababtoo ah waxaan arkay muuqaal social media dhex wareegaya oo la isku soo dhajiyay muuqaalkaas aan rabay inaan ka falceliyo arinkaas ma runba mise waa been horta intaanan maxay ahayd arinkaas idin sheegin inuu run yahay inuu been yahay muuqaalka waxa la soo dhigay TikTok halkan ay idin soo dhigi doono TikTok-gaas ayaa la soo dhigay waxaanan idin leeyahay arinkaas maxaa ka jira ayaad leedihiin idinkuna wada sugaysaan inaan taa idinka jawaabo Amaar miyuu guursaday Amaar hambalyadiisii miyuu qarsaday oo meelahaas ayaa laga ogaaday kulli asxaabta xalayto waxa jirta intaan soo xiriirtay inaan statuskayga Instagram-ka iyo maxay WhatsApp-ka ba story-ga iyo WhatsApp-ka statuska aan ilaahay inaan soo dhigay iisoo hambalyeeyay inta ku soo qoray ayaan maxay muuqaalkaas aan soo dhigay halkan aan idin soo dhigi doono isaga laftarkiisa aan xiiranayo kadib asxaab fara badan baa iisoo reply gareeyay waxay ugu yiraahdeen hambalyo caruus hambalyo lama yaabin waan qoslay aad u mahadsantiin baan ku yiri igama ahayn inaan maxay aan wax kale u jeeday laakiin hayo baan ku yiraahdaa hambalyo aad u mahadsantiin oo idinka qaba hambalyada kadib waxa arkay iyadoo la soo wada leeyahay caruus waxaan dadku hal fikir maxay ugu wada fikirayaan dhamaantood ay ku wada leeyihiin caruus maxay ku wada leeyihiin sababta ay mar dambe ogaaday waxa ogaaday in la soo dhigay TikTok aniga iyo Sundu Saacid oo maxay ahayd la leeyahay hambalyo marka aniga iyo Sundu Saacid miyaan ismehersanay arooskayga maxaa ka jira waxaan media wareegaya maxaa ka jira runtii muuqaalkaas waxaan leeyahay muuqaal sax ah ma ahan
waa muuqaal maanta igu kalifay inaan ka hadlo aan maxayday halkaa usoo fadhiisto. sababta aan wax u soo duubi waayay muddooyinkan waxay ahayd horta 7 cisho ismaan lahayn wax soo duub. waan xanuunsanayay daawooyin ii socday dartood waxaan jeclaystay inaanan wax muuqaal ah haba yaraatee idinla soo wadaagin oo maxayday iska nasto kadib marka ay howlahaas iga dhamaadaan aan idin imaado. dadkii igu dhow ayaan ogeyn ma jeclin macnii asxaabtayda aan wax xanuunsan inaan soo fadhiisto. maanta idinka dartiina ayaa u soo fadhiisanaya halkaa oo maanta halkaa ay soo fadhiisiyay. manaan jeclayn runtii in muuqaalkaas aad maxayday soo gelisaan. qofka TikTok-kaas le waxaan ka codsan lahaa arrinkaas waxba kama jiraan. dadka waxa tahay qof dadka waalaya asxaabtayda badi waxay aamineen in maxayday arrinkaas wax ka jiro. qaarkood baa soo wacay oo igu soo wareeriyay niyo Camaaro arrinkan maxaad nooga qarisay, arrinkan maxaad ula dhuumatay. runtii waan u qaadan kari waayay inaan maxayday ka aamuso arrinkaas. qofna uma qancin karayo dadka bulshada. waxay leeyahay qof kasta muuqaalkan arko TikTok-gaas inta aad gasho waxay hayday qof horta marka hore waxa la hadlayaa qofka TikTok-gaas leh. waxaan ku leeyahay walaalkayo ama walaashay intaad wax ku heli karaysay fiidiyogaas waad ku heshay. muuqaalkaas ka saar sida ugu dhaqsiyaha badan leh haddii maxayday fariintaydaas ay ku soo gaadho. kulley commentina waan kuu soo qoray aan kaa codsanaya inaad ka saarto. insha Allah tacaala waxaan rajaynayaa haddii uu ka saari waayo inaad maxayday aad report gareyn doontaan dhammaantiin inta muuqaalkan daawatay. qof kasta oo muuqaalkan soo gaadho inaad report gareysa ayaan jeclaan lahaa. waxaad samayseen ood igu dirteen qofkayga sidoo kale waxaad ku dirteen qof walba qofkiisa. waxa jirta qof walba noloshiisa wuxuu jecel yahay in maxayday isagu uu kaligiis ogaado ay bareefdo ahaato. ma jeceli maanta aanu maxayday noloshayda in media keeno. media kaliya waxaan u joogaa waxaan idinka farxin lahaa oo muuqaalo qurux badan idinku soo duubi lahaa. waxaa idinka codsan lahaa markaa inaad maxayday muuqaaladan qaldan aad joojisaan. midda kale codsi kama codsanayaba qofka TikTok-ga leh sababtoo ah qofkaas wuxuu isku soo dhajiyaa marba 2 qof oo TikTok aad wada garanaysaan. sababta aad ii weydiinaysaan asxaabtana anu ilaa hadda ma fahmin. waad wada aragtaan wuxuu inuu yahay wax la isku soo dhadhajiyay oo kaliya waxaan leeyahay kulley kugu dhacday qadar eeba waa la qaataa. muuqaalkan waqtiga aan statuskayga soo dhigay hadda soo daawateen aan xiiranayay iyo muuqaalka markaan arkay waxba ma kala dambeyn sababtoo ah marka carus la iga badiyay baan soo arkay muuqaalka. waxaan ka codsanayaa marka aniga hambalyadayda waa 7 July 7deeda ayaad maxayday iga sugi doontaan hambalyadayda insha Allah tacaala haddii Ilaahay yiraahdo. sababtan u lahaa isoo hambalyeena taasay ahayd sabab kale ma ahayn. marka 7 July maxaa jira ayaad isweydiinaysaan. ma jecleen xataa inaan idin sheego taa laftirkeeda laakiin maadaama arrinkaasi jiro oo idinka jahil saarayo waa idin sheegayaa. waxa weeye 7 July waa maalinka aan maxayday oran karo aan ku soo biiray adduunkan oo maalinka maxayday aan dhashay. waa maalinku ii kordhi doono sanad kale oo cusub. waaw haddii aad maanta ku jirto adigu sanadkii 19aad ama 20aad aan waxaan gelayaa sanadkaygii intaa. insha Allah tacaala wax badan kama harin wax yar baa ka hadhay. waxaan jecelahay insha Allah tacaala in maalinkaasna aad ii soo hambalyeyn doontaan. hadda ii soo hambalyeeyay weli laga yaabo maalinka inaan muuqaal idin soo gelin waayo. marka asxaabta wixii aad sameyn karayseen waa sameyseen. arrinkaasna soo report gareeya TikTok-gaas oo ogaada inuu waxba ka jirin arrinkaasi. runtii mana jecel hadalka inaan ku sii dheeraado hadalka oo dhibay dartii. waxaan leeyahay asxaabtayda insha Allah tacaala isku soo ducayno inta xanuunsan Allah caafiyo inta maanta caafimaad qabtay Ilaahay caafimaadka ugu wado. dhammaan inta maxay hayday dhimatay intii noolba Ilaahay naxariisto dhamaantood. wax badan way arki doortaan sida iga barateenba. haddana wax idin ballan qaado macnaheedu maaha inaan maxay hayday idin nacay. kaliya waxa weeye qadarta Ilaahay ayaa wax walba ka horeysa.
waxaad leeyahay asxaabta aad baa idin jecelahay inta ku kulmayno muuqaalka xiga waxaa idinkaga tegaynaa sidaas iyo maca salaama